bismillaahi raxmaani raxiim. habeen wanaagsan. qodobada wararka warbaahinta isha wararka idiin heeso waxaa ka mid ah ra-iisul wasaaraha soomaaliya oo goor dhow gaaray magaalada caabud waaq ee gobolka galgaduud. ra-iisul wasaare kheyre iyo madaxweyne xaaf oo gaaray heshiis ka kooban 5 qodob oo muhiim ah. nin hubeysan oo gaari biil ah ku dhex toogtay ganacsade waare oo digniin adag u soo saaray, iyo ahlu sunna iyo dowladda federaalk ee soomaaliya oo qorka u saaran inay ku kala tagaan qodobo u dalbada ra-iisul wasaare kheyre. wararka dibaddana waxaa u dooran imaaraadka oo sacuudiga uga baxay dagaalka iiraan. daawadayaal intaas waxaa ayaan qaar ka tirsan qodobada wararka warbaahinta isha wararka kuwooda ugu darkoran. haddii aad ku cusubtaa barteena youtube-ka fadlan subscribe dheh oo gujiga baleelka like sharena u dheh asxaabtaada si wararkii ugu dambeeyey aan markaan soo gelino barteena youtube-ka ay durbabu helaan. iyo hagaag aan ku bilowno daawadayaal wararka hordhaca aan idiin sheegnay. ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali kheyre ayaa waxaa la sheegay in goordhow uu gaaray magaalada caabud waaq ee gobolka galgaduud, halkaas oo ay ku sugan yihiin mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalk ee soomaaliya, xildhibaano iyo madaxweyne ku-xigeenkii galmudug maxamed xaashi carabey oo kasoo jeeda magaalada caabud waaq ee waqooyiga gobolka galgaduud. ra-iisul wasaaraha soomaaliya ayaa hadda waxaa wararku sheegayaan in uu kulamo ka wado magaalada caabud waaq ee waqooyiga gobolka galgaduud, iyada oo la filayo inuu arko qeybaha kala duwan ee bulshada ee ku dhaqan magaalada caabud waaq ee waqooyiga gobolka galgaduud. arrintan ayaa waxa ay qeyb ka tahay dadaalo dowladda federaalk ee soomaaliya ay ku dooneyso in doorasho loo dhan yahay iyo dib u heshiisiin inay ka dhacdo galmudug. dhinaca kale ra-iisul wasaaraha soomaaliya iyo madaxweynaha dowladda galmudug axmed ducaale geelle xaaf oo kulan ku yeeshay magaalada cadaado ee gobolka galgaduud ayaa soo saaray go-aano wadajir ah oo la xiriira maamulkaas. wadahadalada labada dhinac oo midho dhal looga gaaray ayaa waxaa looga hadlay arrimo dib u heshiisiinta ay ka mid tahay doorashada galmudug iyo sidii loo dhammeyn lahaa kala aragti duwanaanshaha dowladda federaalk ee soomaaliya iyo dowlad goboleedka galmudug. sidoo kale waxa ay isla garteen in dhuusamareeb ay noqoto caasimad loo dhan yahay oo leh maqaamkeeda, islamarkaana hay-adaha amniga ee dowladda federaalk ee soomaaliya iyo kuwa dowlad goboleedka galmudug ay si buuxda uga howlgalaan magaaladaas. falanqeyn iyo watashi dood dheer kadib waxaa la soo saaray qodobadan oo loo akhriyay warbaahinta. mudug iyo ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk soomaaliya 28 bishii juun 2019. ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane xasan cali kheyre iyo madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug mudane axmed ducaale geelle xaaf ayaa wada hadallo arrimo midho dhal ah ku yeeshay magaalada cadaado maalintii khamiista ee taariikhdu ku beegnayd 27 juun 2018. ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha ayaa ka wada hadlay qodobo muhiim ah oo la xiriira arrimaha dib u heshiisiinta doorashooyinka galmudug iyo sidii loo dhammayn lahaa kala aragti duwanaanshaha dowladda federaalk iyo dowlad goboleedka galmudug. falanqeyn iyo wadatashi dheer kadib waxaa la isla meel dhigay qodobada hoos ku xusan. 1. madaxdu waxay si wada jir ah u bogaadiyeen soo dhoweyntii diiraneed ee 26 juun 2019 loogu sameeyey ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan cali kheyre magaalada cadaado. 2. madaxweyne xaaf iyo ra-iisul wasaare kheyre waxay isla garteen in la dejiyo geedi socodka iyo hanaanka dib u heshiisiinta iyo doorashooyinka si loo helo galmudug midaysan. 3. in dowlad goboleedka galmudug ay qaadato kaalinteeda kaga aadan arrimaha dib u heshiisiinta iyo doorashooyinka iyada oo kaashanaysa wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta ee xukuumadda federaalk soomaaliya. 4. si ay u noqoto caasimad loo dhan yahay oo leh maqaamkeeda waa inay hay-adaha amniga ee dowladda federaalk soomaaliya iyo kuwa dowlad goboleedka galmudug ay si buuxda uga howlgalaan magaalada dhuusamareeb. 5. in dowladda federaalk soomaaliya ay soo celiso kabistii miisaaniyadeed ee galmudug si loo dardargeliyo arrimaha amniga iyo adeegyada kala duwan ee bulshada galmudug. dhammaad. wabilaahi towfiiq. wararka al-sunna iyo dowladda federaalk ee soomaaliya ee galmudug ayaan ku guda jirnayay. dowladda federaalk ee soomaaliya iyo wararka al-sunna ayaa waxaa la sheegay inay qarka u saaran tahay inay ku kala tagaan qodob uu dalbaday ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali kheyre oo safaro ku kala bixinaya deegaanada galmudug.
kooxda al-sunna ee fadhigoodu yahay dhuusamareeb ayaa diiday shuruudo iyo qodobo uu soo bandhigay ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali kheyre intii lagu guda jiray wadahadalkii dhex maray labada dhinac. warbaahinta isha wararka ayaa ilwareedyo lagu kalsoon yahay waxa ay sheegeen in ra-iisul wasaaraha soomaaliya uu dalbaday in heshiis kasta oo dhex mara dowladda iyo ahlusunna ay sidoo kale ku jirto in la qarameeyo ciidamada ahlusunna ee ku sugan magaalooyinka ay ku xoogan yihiin sida gurceel iyo dhuusamareeb iyo deegaana kale. kheyre ayaa ahlusunna u sheegay in uu doonayo in uu ciidamada kooxda ay ka mid noqdaan militariga dowladda federaalk ee soomaaliya, gaar ahaan guutada 21aad si ay dowladda uga caawiyaan dagaalka ka dhanka ah ururka al-shabaab ee gobolada dhexe ku sugan qaybo ka mid ah. qorshahan ayaa qayb ka ah qorshaha guud ee ra-iisul wasaaraha soomaaliya ee dib u habeynta ciidanka iyo xoreynta dalka, wuxuuna soo jeediyey in marka ciidamada ahlusunna la qarameeyo ay ku biiraan ciidamada kale ee dowladda oo qaadaya howlgal al-shabaab looga saarayo meelahay kaga harsan yihiin gobolada mudug iyo galgaduud. si kastaba ahlusunna ayaa diidan in ciidankooda ku biiraan ciidanka dowladda federaalk ee soomaaliya, gaar ahaan ciidanka militariga ee qeybta 21aad ee fadhigoodu yahay galmudug, waxayna sheegtay inay sii ahaan doonaan ciidamo taabacsan ahlusunna wal-jameeca, balse ay diyaar u yihiin inay dowladda ka caawiso in mushaar loo siiyo ciidankaas ahlusunna. sida aan xogta ku helnay, ra-iisul wasaare kheyre ayaa uga digay ahlusunna inuusan jiri doonin heshiis dhex mara kooxdan iyo dowladda federaalk ee soomaaliya haddii aysan qodobkan muhiimka ah aqbalin. labada dhinac ayaa la filayaa inay wada hadallo kale oo dheeraad ah yeeshaan, hase yeeshee waxay hadda kala taagan yihiin meel aada u kala fog. madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabelle maxamed cabdi waare ayaa digniin adag soo saaray. madaxweynaha maamulka hirshabelle maxamed cabdi waare oo la hadlay warbaahinta ayaa digniin ka soo saaray dagaal beeleedyo kasoo cusboonaaday qeybo ka mid ah gobolka hiiraan ee bartamaha soomaaliya. madaxweynaha hirshabelle maxamed cabdi waare ayaa dagaalkaas ku tilmaamay kuwo fidno ah oo aanan la aqbali karin, wuuna sheegay inay ka hortegi doonaan. sidoo kale waxa uu ugu baaqay waxgaradka beelaha diriiraya inay ujeediyaan dagaalka wax walbina ay ku dhameeyaan wadahadal. maxamed cabdi waare ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in maamulkiisa uu ka xun yahay dhibaatooyinkaas, waxaana uu ka digay sii socoshada dagaaladaas. gobolka hiiraan gaar ahaan nawaaxi degmada matabaan ayaa waxaa kusoo laalaabtay dagaalo u dhexeeya beelo wada dega halkaas. dagaalkii ugu dambeeyey oo dhacay shalay ayaa waxaa ka dhashay khasaare xoogan oo isugu jira dhimashadii dhaawac. xaaladda ayaa maanta degneed, waxaana haatan socda dadaalo nabadeed oo laga hortagayo xiisada u dhexeysa maleeshiya beeleedka ku dagaalamay deegaanana ka tirsan gobolka hiiraan. ugu dambeyntiina waxaa wararku ay sheegayaan in nin hubeysan oo gaari biil ah uu ku dhex toogtay ganacsade. faahfaahino dheeraada ayaa kasoo baxaya toogasho uu nin hubeysan u geystay nin ganacsadaha islamarkaana ku dilay duleedka muqdisho. dilka ayaa waxaa lagu soo waramayaa in loo geystay nin lagu magacaabi jiray cali bashiir muuse, kaas oo ahaa ganacsade. marxuumka ayaa la dilay xilli uu hortaagnaa goobtiisa ganacsi oo ku taal duleedka muqdisho. dad goobjoogayaal ahaa ayaa warbaahinta isha wararka u sheegay in marxuumka laga dhex toogtay gaari biel, gaar ahaan hoomey ku socdaaleysay wadada marta tiradishe ee isku xirta magaalooyinka muqdisho iyo abgooye ee gobolka shabeellaha hoose. sidoo kale ilo dhinaca ammaanka ah ayaa inoo xaqiijiyay in gacanta lagu soo dhigay wadihii gaariga, balse wuxuu uu tilmaamay in ninka dilka geystay uu ka degay gaarigiisa islamarkaan uusan aqganayn. ilaa iyo hadda lama oga sababta ka dambeysa dilka loo geystay marxuum cali bashiir muuse oo ka ganacsan jiray liinta. muddooyinkii lasoo dhaafay ayaa waxaa siyaabo kala duwan muqdisho iyo duleedka uga dhacay falal liddi ku ah nabadgelyada, iyadoo ay howlgallo amniga lagu xaqiijinayo ay ka wadaan ciidamada booliiska ee dowladda federaalk ee soomaaliya muqdisho iyo nawaaxigeeda. halka warkaas daawadayaal idinkaga imaanayo waa warbaahinta isha wararka. markana wararka dibadda, imaaraadka carabta ayaa sacuudiga uga baxay dagaalka iiraan. dowladda imaaraadka carabta ayaa u muuqatay inay dib uga goranayso xiisada ka dhexeysa dalalka khaliijka iyo dalka iiraan, iyadoo bedeshay mowqifkeedii hore. wasiirka arrimaha dibadda imaaraadka cabdullaahi bin sayaad ayaa sheegay in dalkiisa uusan hayn wax caddeyn ah oo si cad u sheegi kara dilkii ka dambeeyey weeraro lagu qaaday maraakiib ku safraysay biyaha gacanka dhowr toddobaad ka hor. bin sayid oo warkan ka sheegay magaalada moscow oo uu booqasho ku tegay ayaa tilmaamay inaysan imaaraadku aysan hayn kiisas arrintaas lagu xaqiijin karo. hadalkan ayaa aada uga duwan
kii bin sayid laga soo xigtay bishii May markii la weeraray maraakiibta saliidda kaasi oo ku sheegay in faraha Iiraan ay si aad uga muuqdaan weerarada. dowladda Imaaraadka Carabta ayaa hadda muuqatay inay ka laabatay eedeymahaas waxayna ku baaqday in la qaboojiyo xiisadda isla markaana wada hadal lagu dhameeyo. warkii wadaadeen xilligan kaga imaanay warbaahinta isha wararka wanaga inta warkan warka xiga inta dib ugu kulmi doona qaybtana daawatay sidaas iyo nabadgelyo.